على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، waxaynu ku soo jiray xadiidkii 19aad ee ibn Cabbaas dardaarankii dheeraa ee nabigu uu siiyey salawaatu rabbi wa salaamu calayhi qaybtiisa u dambeysay baynu ku jir. wa fii riwaayatin ghayri tirmidi, riwaaya uusan tirmidi lahayn waxaa ku sugan, riwaayadaasna waxaa iska leh alimaam cabd ibn xumayd fii musnadihi 636 raqamka ah. riwaayadan dambe ee tirmidi uusan soo saarin imaamkaasaa soo saaray iyadoo ka faahfaahsan oo ka cadna axmed baa fii musnadihi ku sheega. ixfid illaaha ilaahay ilaali oo xifdi biطaacatihi wa cibaadatihi wa muraacaati xuduudii ku ilaali oo ilaahay xifdi tajidu waxaad ka helaysaa ilaahay ammaamaka hortaada, waxaad helina ilaahay inuu ku dhowro oo kuu gargaaro weeyaan adiga ahalkaadiba. tacaraf ila allaahi ilaahay isjeclaysii ama isbar fi raakhaai xilliga muxuu ahaaye barwaaqadu ay jirtee bayaxowga la joogay ee berisamaadka ah. yacrifka ilaahay wuxuu ku aqoonsan oo ku garan oo kuu gargaaray fi shiddati xilliga dhibaatooyinka ay jiraan ee abaaruhu dhacaan. haddaad markii barwaaqadu jirta ee la nabad qabay ee wax kastaba kuu saxnaayeen aan ilaahay subxaanahu wa tacaala si fiican aad una caabudi jirin oodan baryi jirin oodan laasimaynin cibaadadiisi iyo xuduuddiisi, hadhow dhib markuu kugu yimaadaa inaad anfariirto ood argagaxdoo rabbi ku carartaay macno badan keeni mayso, laakiin laftirkeedu waa cibaado iyo addoonnimo wey. laakiin waxaa lagaa rabaa xilligaadaan dhibanayna ilaahay inaad caabuddo subxaanahu wa tacaala, markaad dhiban tahayna aad caabuddo laba gooraba marka rabbi subxaanahu wa tacaala waa ku gargaarahaya. waclam waxaad ogaataa ibnu cabbaasow anna maa akhta'aka wixii ku gafaay ee ku garab maree masaa'ib iyo maqaadiira lam yakun ma ahayn liyusiibaka mid kugu dhaca. sadaqa igu baxda iyo waan sigta iyo howlahaasi innagaa isku qancinna mooyeen, bini aadamka iyo ducafada baa isku qancinhaya mooyeen, wax kastoo ku garab mare oon kugu dhicin kumaba qoraynba. wamaa asaabaka wixii kugu dhace ku asiibana lam yakun ma ahayn gebi ahaanba liyukhti'aka mid ku gafa, marnaba kuma gafeen. meeshaan haddaan ka dhaqaaqi lahaa waxaan iguma dhaceen, saa haddaan yeeli lahaa sidan ma noqoteen, wax badan tari mayso. adunbaa isku qancin oo isku sabarsiinhaya mooyeen, go-aan waa hore dhammaaday weeye. waclam waxaad ogaataa anna annasra gargaarku maca asabri sabarku la socdaa, adkaysiga iyo dulqaadka iyo gegsigu guul iyo gargaar iyo limin baa lagu gaadhaa. wa anna alfaraja farajku oo ilaahay subxaanahu wa taala kurbada uu kaa faydana maca alkarbi bay la socotaa. markay kurba ku qabato oy kodool kugu taagan tahay iyo culays uu ku saaran yahay, ilaahay subxaanahu wa tacaala farajkiisuna waa dhow yahay. wa inna maca alcusri culayska waxaa la jiro garab socda ama ka dambeeya yusran fudayd iyo muxuu ahaay ilaahay sahalkii subxaanahu wa tacaala. qawaaciddaasi uu nabigu u tabiyey ibnu cabbaas, nabigaa marka hore ka codsaday uu yidhi maku baraa kelimaad ilaahay uu kugu anfacahayo, markaasuu yidhi haa nabi allow ibar, sida axmed riwaayadiisu ay caddaysay. marka wiilkaa yarka haddee nabigu sal ly slam ay ilmadeerka yihiin wuxuu ka saxayaa asaasiyaadkii ayaa lagu qorayaa, qalbigiisii iyo wadnihiisii lagu qorahaya siduu hadhow caqiido ooga dhigto. intaan marka uu nabigu sheegay sal ly slam xadiidkan uu ku sheegayna waa jimaacu alkhayri kulli, khayr oo dhanba wixii ururinhaya weeye. qadarkii baa ku jira, asbaabta nasriga waxyaabaha keenaa ku jira, goormuu farajku yimaadaa buu nabigu ka hadlay sal ly slam. masaa'il tawxiidiya, idaa sa'alta fas'al illaah waida istacanta fastacin billaah buu nabigu ka hadlay. dhib iyo dheefba in ilaahay xaggiisa ka qadaran yahay ayuu nabigu u sharxay saxaabiga ibnu cabbaasa. maqaadiirtii buu nabigu ka soo sal ly slam. lafdiga ah waclam ana alummata ee xadiidkii hore ku jiray riwaayada hore, ummaddaa waxaa looga jeedaa khalqigoo dhanba. riwaayadii axmed baa caddaysay falow ana alkhalqa kullahum jamiican, khalqiga dhammaantii hadday isku raacaan ay dhib kuu geystaan kuma dhibi karaan, waxaan rabbi kuu qadarin kuma gaadhsiin karaan. hadday kulligood isku raacaan ay ku dadaalaan inay ku dhibaateeyaanna ee inay wax ku taraanna waxaan rabbi kuu qorin kugu dhici maayo. waa inaga soo marray taqdiirkii iyo qadihii iyo maqaadiirtii qaybaheedii anwaacdeedii kala duwaneed aynu soo marray. marka ilaahay subxaanahu wa tacala adduunkiisa wuxuu ka rabaa xilli berisamaad la joogo oo barwaaqo la joogo iyo xilli ay abaaro iyo qamaacir jiraanba inuu addoonku xaalad waaxida ku socdo ilaahay caabudo. bacdu alaahaar yaa waxay sheegaan addoonku hadduu waagu wanaagsanaa ee uu nabadda ahaa ee uu dhibsi jirin ilaahay caabudi jiro oo baryi jiray,
hadhow marka dhib ku dhaco ilaahu iga fayd markuu yidhaahdo rabbi wuxuu codkaani waa codaan aqaano weligiiba isoo wici jiray oo i baryi jiray oon cibaadadiisu aysan kala go' lahayne malaa'igay hawsha ha la qabto ninkaasi ha la caawiyo amar baa la siinhaya haddii laakiin ilaahay xadhiggiisa uu kaa go'naa oo markii dhib kugu dhacona aad laymanka surato waxaa la odhanayaa codkaana cod cusub hadda soo anfiri weeye faraha ka qaada daaya weliga ha jaqjaqleeye naftu ha ka baxde idan tacaraf ila allaahi fi rakhaa'i yacrifka fi shidda saasay salafku ku fasireen in badanoo ka mid a min ataabiciina min asaxaabati waataabiciin iyadoo sidaa tahay addoonkii laftirkiisu ikhlaas la yimid iyo sidqi cinda shiddana soo anfariyey horaanba ha gebe dhacee haddana rabbi subxaanahu wa tacaala ikhlaaskiisa iyo sidqigiisa iyo kolba baahidu intay dhan tahay iyo baryadiisay ku xidhantaho xataa ibliis baa wax laga aqbalay mushrikiin baa wax laga aqbalay markay la yimaadaan ikhlaas la yimaadeen iyo muxuu ahaayey cibaado ay markaas rabbi u barax tireen markay u dhibku qabsaday faidaa rakibuu fi lfulk dacaw allaha mukhlisiina lahu ddiin waidaa hashiyahum mawjun kadulali dacaw allaha mukhlisiina lahu ddiin waidaa masakum uduru fi lbaxr dalla man tadcuuna ilaa iyah intaan marka saasay culummadu ku fasiraan masaladan marka iyadu ah wixii ku gafa kuguma dhaceen wixii kugu dhacayna kuguma gafeen qur-aanku in badan buu qaadaa dhigay nabigu in badan buu sharxay waxaan waa qada iyo qadar wey fii saxiixi muslim waxaa ku sugan ina allaha kataba maqaadira alkhalaa'iqi qabla an yakhluqa asamaawaati waalard b50,000 sana khalaa'iqdii uunkoo dhan ba ilaahay hawshooda wuxuu jaangooye oo qorsheeyo meel ku qoray intaan ciriya dhul la abuurin 50,000 oo sano ka hor waxaan waa kaa horreeyey haddana marka lagu abuurhayaa xatana gooni loo qoray hawshaada waa taqdiir dambe oo markaasi khaas ah midkii guud waa dhacay ilaahay subxaanahu wa tacaala makhluuqaadkiisa waxyaabih u horreeyu abuuray waxaa ka mid ahaa qalamka markii la abuuray waxaa le uktub bimaa yakuun fajara tilka asaaca bimaa yakuun ilaa yowmi alqiyaama xilliga ayadee la abuuray buu qoray wax kastoo dhacaya ilaa qiyaami saaca marka hawshan waa arrin la dhammeeyey oo wahoo laga farxashay oo meel ku qoran weeye aduguna ariiqii unbaad maraysaa marka walbahaarka iyo cabsida iyo wadnafugta iyo waxaasoo dhanba qadarku markaad aaminto bimaraatiibi alarbac aynu soo maray shajaacaad heli jur'aad heli geesnimaa ku geli qalbisami baad helaysaa ruuxa laakiin alqada walqadar aan aaminsanayn maantoo dhan shimbirta duushaba waa gabanhayaa ila nafti baa hayse marka waxyaabaha laga helay ka mid tahay waaclamu ana annasra maca sabr intaa danba nabigu sal ly slam sabrku saddexda qaybood baa nabigu waa u jeeda alsabru cala alطaacaat alsabru cala almacaasi walsabru cala almaqaadiiri walmaqduuraat masaa'ibta kugu dhacaya jidhkaada ee xanuun iyo rafaad iyo walbahaar iyo hazaa'im waa inaad ku sabarto طaacaadka culays bay leeyihiin xilli baa hurda laga kici soomkii culays buu leeyahay salaaddii sidoo kale idan sakadii bixinteedii lexjecladu inay kaa soo godaan la rabaa qaraabada xidhiidhinteedii ahalkii dhaqidhiisii muslimiintii si wanaagsan in loola noolaado waxaaso dhan waxay u baahan tahay in lagu sabro طaacaadkii waajibaadkii macaasidana in laga sabro in macaasida laga sabro waajibaadkana loo sabro ayaa ka fadli badan in masaa'ibta iyo maqaadiirta lagu sabro waynu gaari doonnaa in sha allahu tacaala maxaa yeelay kuwana asaas ah soomkoo kale waynu gaari doonnaa saddexdiiba waa laga helayaa marka koobaad asigi baad ku sabro waa waajib cala asabr asabru cala alwaajib marka labaad waa asabru cala mxuu almacaasi shahawaadkaadi iyo naftu waxay jeclayd oo dhan baad ka sabri ood beentii iyo barabagandadii iyo xantii iyo xamashadii wixii o dhan baad ka fogaan ayib zinadii baad ka fogaan shahawaadkao dhan baad ka fogaan waa asabru cala almacaasi waashahawaat asabru cala almasaa'ib baa ku jiro gaajaa ku haysa oon baa ku qaban waad rafaadi lahan baa kugu dhici soonku wuxuu leeyahay markaasna waxaa ku jira asabru cala almaqduuraat baa ku jira asabru cala طaacadna waa ku jira asabru cala almacaasina waa ku jira nasrigu gargaarku sabr buu la socdaa albataal ninkii loodhan jiray amiirka ah baa la weydiiyey nin reer shaam ahaayo aad muslimiinta raggii qaadada ahaa ee mujaahidiinta ka tirsanaa reer rum waagi lala dagaalamahayana wacdaro dhigay umaradii reer banu umayana waagi dambe ahaa albataal loodhan jiray baa la weydiiyey geesi buu ahaa nin aad u cal adag buu ahaa waxaa la weydiiyey geesinimadaa la weydiiyey wuxuu ihi ashajaacatu waa sabru saaca geesinimadu buu ihi waa inaad wax yar adkaysato wax yarood sabarto wey ninku hadduu bur kugu bilaabo adna aad u dabamariso waxba ad u hadhawaaqinoo caaci iyo ciic midna ha odhani inta kugu dhacaysaa ku dhacaysa inaad ungegsataa laga rabaa ilaahay subxaanahu wa tacala wuxuu ihi in takunuu ta'lamuun fa innahum ya'lamuuna kamaa ta'lamuun intaad xanuunsan ee laxaw iyo dhib kugu dhacayo ayaa cadowgana ku dhacaya cantara asagoo waxaa laga soo guuriyaa
in Cantar ibn Shaddad waxa laga soo guuriyay nin baa u yimid oo ku yidhi inaad geesi taa la sheegay geesnimada lagu sheego maxay ahay wuxuu yidhi suulkaada ii dhiib waan ruugahayaa kayga ruug boori anu cabaadin mahay adigu ha cabaadin suulkayga afka gasho sidii ritiga u ruug boori anna kaada ii dhiib labada suul baa la isrugay ninkii baa cabaad maxaa u cabaadi boori ashajaacatu waa sabru saaca geesinimadu waa inaad wax yar adkaysato marka xabadda la isku liso dad isyar nabto hadhow waxa hebel geesi weeye suuqay kuu gelaysaa laakiin dad iska boodo waa fulan baa lagu odhanaya asagoo nin walba uusan qadarkiisii dhaafaynin iyo wuxuu rabbi u qoray marka sabrigu wax kastaa ku dhisan salaadaa loo sabri halgankii baa loo sabri sadaqadii baa loo sabri cibaadadii baa loo sabri nasriguna iyadoo ku jira sabarka asaga wa ana alfaraja faydidu kurbada lagaa faydo oo ilaahay nafis uu keeno maca alkarbi bay la socotaa ruux markuu walbahaaro oo dhib badan uu la kulmo iyo kurbooyin ay iskaga daba yimaadaan xaggana uu sabro farashka ilaahay waa dhow yahay sida ilaahay subxaanahu wa tacala nabiyullaahi nuux oo u gargaaray oo wanajaynaahu min alkarbi alcadiim ayaa lagu gargaari nabi nuux baa karbiga laga fayday nabiyullaahi ibraahim nabiyullaahi muxuu ahaaya muusa nabi maxamed oo intaasoo goor laisku dayay muxaawala baa'isa yaa'isa in muxuu ahaayey adduunka la dhaafay ilahay baa u gargaaray muslimiintii waxaa lagu talagalay in la baabi'iyo damiru lislaama wa abiidu ahlah akara min 100 mashruuc waagaada la baabi'inhayay dowla cumaaniya alkhilaafa alcumaaniya reer yurub waxay dejiyeen 100 khuto oo ugu talaga inay ku baabi'iyaan muslimiinta 100 khuto markay 70 dabaqeen mise 30 bay ahayd 30 dabaqeen bay dowla cumaaniya dumiyeen ay u dhiman tahay 70 mashruuc oo kale mashaariicdan baa socon marka ilaahay subxaanahu wa tacaala markaad adigu sabarto oo dul qaadato ilaahayna barido farajku waa iman hayaa wa ana alfaraja maca alkarb ilaahay subxaanahu wa tacaala hawshaasi waa hawl lagu yaqaano mu'miniinta iyo dadka khulasta ahlu khayrka nabiyullaahi yuunus hawshii laga badbaadiyada waa garanaysaan waxaasoo dhan mu'miniinta iskale wakadalika nunji lmu'miniin ruux kastoo iimaan saadiqa laga helay ilaahayna baryey mushrigna aan ahayn hawshaa waa helahaya kurbooyinka ilahay baa subxaanahu wa tacaala fayda asaga keligiina ha la baryo الإمام ابن أبي دنيا كتاب كسولويق الفرج مع الشدة وحكو شيء قصص دادير والسلف ككل عضي وحكو شيء نين إمام أها ولورنجل أبو حفص بن شاهين أيام مالي مالمها كمذا ميل دكان و10 كوب حنجري من محدث وحافظه أها أيا دكان كي يحاسوق قلي نين 8 درهم وطؤ ألاب هويني أم الشيء وقضى هي مشاري وحنوع عاسي البي يوروري dambiil buu ku qaatay madaxu saaray markuusan wax yar dhaqaaqin intuu kufay bay dambiishii iyo wixii dhan tay daateen bay wixii dhan jabeen ninkii miraad buu isla rogay nin weyna waa ahaa af labadii buu ninkii dhawaaqay waa booy waa loo yimid waa la yaab waxa la waa ku sida dambiil wax yar ku wadatay in baa ka jabay maxaa ku gaaray jazacan iyo argagaxan iyo dhawaaqan iyo oohintan maxay ahay wuxuu yidhi niman yahow dhib ahaysta baan la ooyahayaa buu hadda ka hor waxa iga fakatay buu qandi ay ugu jirtay 120,000 oo diinaar baa iga fakatay buu maalinka waan sabray xataa oohin iska daayay maanan dareemin buu maxay la tabarteedan lahaabo hadda wuxuu yiri haweenay baa xalay u umushay safar baanan ka imid xoolo 10 dirham baan ka naxay ilmihii qaawana ay soo kordhay iyo islaanti xanuunkeedii iyo hawlahan intaan ya Allah ku soo helay buu intii waxaan ku iibinaa waa halaagsameen meel haddaan u dhaqaaqo iyo ayaga waxaan kula noqdo midna garan maayo ninka kurba qabatay meesha lagu niqaashahayo guri ku soo jeeda jidka lagu wada hadlayo guri ku soo jeeda yaa nin waayeel ah oo oday ah oo ciidamihii dawladda ka tirsanaan jiray yaa fadhiya nimanka sheekada dhex maraysa ayuu dhageystay markay ninkii miskiinka u caqli caliyeen wadaadkuna waaniyay wadaadina ay la hadleen inay kala dhaqaaqaan ay doonayaan odaygii baa u yeedhay kaalayb odaygu qandigii buu hayaa qandigii ninka ka fakaday 120,000 oo diinaar ay ku jireen ayuu helay asoo waagaas ilaa inta uu haya akthar min 30 sana ayuu hayay nin aamina oo sheekha oo mujaahid u ahaa wuxuu yiri bal hadaay waxaad sheegayso ku soo celi ninkii wallahi hadlay musaabka ay dambiisho ka jabtay ee ooyay wuxuu yiri 30 sano ka hor anoo hiilan noocaas ku qabaysan haya baan hanti inta leeg yaan meel dhigtay wax qaaday iyo meel ku dambeysay midna waan waay wuxuu tilmaan qandigi buu tilmaan taqariiradki
goormay ahayd intaa lacagtu maxay dhannayd intaas wixii oo dhan buu sheegay wuxuu yidhi 30 sano anoo yaroo dhallinyaro ah hiladaa maalin uu ku qabaysanabaa qandigo yeelaan ka qaaday buuri amin dambe oo lagu kala tagay intaa waan hayay buuri qandigii waa kay markaasi qaada buuri wadaadka haddana mar dambe wuu ooyey farax buu la ooyey hadday wuxuu la ooyahay walbahaar iyo meel u dhaqaaqiyo adduunka isku soo xidhxidhay haddana farax buu la ooyey ilaahay subxaanahu wa tacaala kurbeynku markay yimaadaan faraj buu keenaa wuxuu kaloo ka sheekay imaamku odaygii baa wuxuu yidhi waxaan u malaynhayaa buu ihi wixii hadda ka dambe inaan dhiman doono maxaa jiraa la yidhi wuxuu yidhi qandigan waxa kaliya maanta walbahaar igu haya adduunka jaallu ahaa buuri camalkayga waan soo dhammaystay waxaan dhaqi karay waa soo dhaqay waxaan cibaado la iman karay waxaa walbahaarka kaliya igu taagan kodasha igu taagan qandigan iyo qariirkan iyo 120 ee diinaar ee intaad yaahdaysay ood yaahdaysay wax sheegta la waayey aduguna ma isticmaali kartay xageed geysaa yaa walbahaarka ugu badan u ahaa buuri iyo wax igu taagan mar haddaan nastay waxaan u malayn buuri geeridu waa xalaal 20 beri kadib waa dhintooday tii allah ku timid waa geeriyood wuxuu kaloo ka sheekeeyey xilligii khilaafadii bisanadin oo asagoo ku wariyo khilaafadii haaruun arashiid ayaa waxaa jiray nin sayrafi ah nin sarifla ah wuxuu sarif ka shaqaystay ayuu addoon ku iibsaday quruxsan addoon aad u quruxsan oo iskugu bogay buu ku iibsaday xaas buu ka dhigtay shaqadii oo dhan buu ka fadhiistay gabadhii buu ku mashquulay inuu meesha sarifka tago oo wax saalax weetayo oo wax gedgediya laga doonahayay gabadhii buu cashir ka dhigtay xoolihiisoo dhan baa dhammaaday gabadhii uur bay qaaday waagi dambe fool baa qabatay isagu wuxuu isla haya aan jirin markaasuu magaaladu baxay dayn buu raaday dayntii waa waayey dadku yaqaano dhan buu u tegay waxba waa waayey wuu soo noqday islaantoo fool ay ma hayso oo dhawaaqaysa oo daawo u baahan oo dhaqaalo u baahan oo dhar u baahan wax kastaba u baahan isagoo walbahaarsan buu iska dhaqaaqay wuxuu meesha dishaaba webiga dijluta waa baqdaad webiga dijla ayuu tagay waxaan ka kala booday waxaa ka horreysay wuu safray gabadhuu xaamulu ka safray wuxuu aaday xoolo u lahaa wuxuu u kaxeeyey halkaas iyo khuraasaan buu u kaxeeyey dhaxda markuu marahayo yaa nin bay isheleen ninkii baa nin fiican iskaga dhigay oo nin u khidmeeyey oo salaadii la tukaday oo la socda habeenno wuu aaminay maalin odagu yar seexay buu hantidii oo dhan iyo macal daabadii la kacay odaygii dib buu u soo lugayey baqdaad buu dib ugu soo noqday isagoo cagacadaana markuu soo noqdayba gabadhii oo foole hayso buu ku soo noqday meeluu u dhaqaaquu waayey hawshina ma sheegi karo isagoo walbahaarsan hantidiisana dee gacan lagu dhigay horaanna inuu shaqaysta diidoo gabadhan caqli mooday intuu hayada intuu suuqgeeya laga dhacay oo meeluu u dhaqaaqa garan laha webiga dijlu tago masku tuurtaa buui haddana ilahi ba ka cabso wuxuu yidhi haddaad isdisho haddii amaad naaraad ku waarto aad gashaa wuxuu yidhi go-aan wuxuu gaadhay usan ku soo noqonin uu iska dhaqaaqay tuulaba tuulay u dhiibtay si u socday khuraasaan buu tegay baqdaad buuna ka lugaynaya khuraasaan markuu tegay buu hadda nin shaqo yaqaanoo shaquu meelihii ka ballaabay wuxuu qadqaaday iyo wuxuu kala sarrifay iyo nin farsamo yaqaano ganacsado ah xoogow shilimuu helay waraaq buu soo qoray wuxuu yidhi gabadhi tolo ma isku dhimatay mise waa noo sheekh baqdaad jawaab ma laha 66 waraaqood buu soo diray 66 waraaqood markuu wax jawaaba ka waayey go-aan wuxuu gaadhay gabadhihee iyo wiilkeediiba iyo ilmahay dhashay bayna isla dhinteen wax nool inuusan jirin khuraasaan buu iska joogay waa shaqaystay imaamku wuxuu sheegay 30 iyo dhowr sano ayuu iska joogay khuraasaan ila reerka waa ka samray reer khuraasaan buu iska noqday waagi dambe uu yidhi war dadkii qaraabada ahaa iyo baqdaad iyo dadka islaamka maa ka war doontid ood iska aadid waddankii wuxuu hanti lahaa buu awr iyo dameero iyo fardo iyo baqlo intuu kusoo kaxiyey buu soo dhaqaaqay markay dhexda marahayaan tuug baa heshay mooryaan wuxuu lahaa ee hanti ahaa ayaa cagta laga mariyey 100,000 diinaar hanti lagu qiyaasay buu watay buu wadaadku yidhi asagoo cagacadaana oo siduu baqdaad ooga baxay ah iyuu ku soo noqday baqdaad guriguu gabadha kaga tegey
يودمال كلام يقان بل من كور دون طلوا إني ونحن رقة يوحكوا شيء حلي دنتني حلي بابئين قولوا مركو كوسو بحي قولوا وابا اسبداليبا قولوا عيدن باواردين هيا حجابين با تاغن بوري غار با جوغا ويل با كشقين هيا البابكيس waa bedelan yahay waa cimaaraad meesha dawlad baba ka jirtaba nin miskiin iska dhago ninkii waardiyaha buu gurigan yaa iskale xal gurigan waxa iskale fulaan ibn sayrafi wiil hebel yada ina sayrafa nin sarif la oo dhalay ba gurigan iskale oo wiilkan ayaa dhalay adoon hebel la yiraahdo ninka sayrifka uu qabi jiray ayaa dhashay wuu iska sugay wuxuu yiri ninku xagee fadhiista wiilku xalli waaba sargaal saro oo dawladdan ka tirsan maamuun baa markaa khaliif ah maamuun ibn harun rashid baa khaliif ah oo dawladda maxaa u galay dawladda waxa u galay asagoo hooyadii ayaa ninkan amiirka maamuuna nuujisay oo say u nuujisay uu wareystay odayga waa yaaban yahay wuxuu yiri ayadoo markay umushay ee wiilkan yarka ay dhashay ayaa ninkeedii la waayay meel ka baxay sayidkeedii habeen madow buu waxa idin doonayaa cid aragtay bur lama ma hayaba ma dhintay ma nool yahay la raadi laga samir markii ninkeedu uu ku soo noqon waayay ay islaamkii dariskii baa u soo gurmaday oo xoog raashinay mushaari wax u kan keenay kadibna Harun Rashid baa wiil u dhashay oo markaa khaliif ahaa wiilkii baa la damcay wax nuujiya haweenkoo dhan buu diiday wiilkii maamuuna adoontii wiilka umushay ninkeeda ka cararay naaskeedii ma wax kale u qabtaa la waayay adoontii iyo wiilkay dhashay waxaas la qaatay dawladda maamuun bay markan nuujisay khaliifkii muslimiinta haystay islaantana naas nuujisay wiilku asagoo ka cararay u dhashayna wuxuu la walaalayahay xaq naaska maamuun wiilku markuu waa sargaal saro dawladda haysta hooyadiina waa maamuun hooyadii xagga nuugmada waana wiilkan hooyadii reerka waa nabad islaanta dhashay away wiilku waa yahay habeenana guriga khaliifkii iska soo baridaa habeenna guriga wiilkeeday timaadaa waa ugaasad haye odaygu waa yaab wuxuu dhahay leegay wiilka meesha joog wiilka de saf baa loo galaa oo nin kasta faylkiisu u geystaa odaygu baa ka sheekeeyay qadiyada ka sheekeeyay faylkiisaan iskaga jiray nin sakarada hadii soo rafaaday nin yar baa hada 40 sano maqana waxna ma hayo xoliisana cagta la mariyay yaa safki soo galay buu ninka u dambe dadka dhammaanka kala dareereen oo nin kasta dantiisa u qabtay maxay dantaadu tahay waxaas waa wasiirka dhanay dawladda way oo u dhameeyay buu oday hay dantaadu maxay ahay waa aabihi wuxuu yiri aabaha baan ayaa wala gabo wuu fiiriyay ma garan karo hada ilma duqada waliga arag xaqiiqada u garan hadii wuu fiiriyo wuxuu yiri Kemba anigu hadda aabaha baan ay xukumo qaadan kare matiina kuma dhigi karo aabahay anoon dhalinin buu tagay inuu dhintay baan la ii sheegay waasan noolaan karaa laakiin tii dhash baan ku geeyna bayla Kembo dadka oo dhan buu fasaxu u dambeeyay la asaga u dambeeyay wuxuu geeyay xaruntii dawladda hooyadii buu xijaab u xidhay wuxuu yiri bal hooyo dhageysa hadda odayga markuu hadlay way garatay islaamtu inuu asaga yaa codkiisay garatay دوغي ماشي ku soo booday doqday isku duubtay ku ooyday wiilka abu raale oo barsuxun baan ku dhaqmay ugaas baa laga dhigay wiilka waa la dalacsiiyay odaygana jaga kala loo dhiibay farajkaas ilaahay subhanahu wa ta'ala kana kurba timid wuxuu leeyahay in rajab asagu markuu tilmaamay masaladan wuxuu leeyahay waxaas dhan waxay tilmaamaysaa adoomahan ilaahay saa uu gargaarayo inay dad wanaagsan ahaayeen waxay shaqaysteen wax xalaal oo aha yani ilaahay faraj waa kana subhanahu wa ta'ala laakiin weyn asbaabteedii laga helo قصص بدن بو كشيكيو ادو فر بدن كتابك هل اخري اد بو قيمه بدن يحي وان مع العسر يسرا نبي وحو كشي صلى الله عليه وسلم الهي ادوميhiisa markay intay abaara ku dhacaan oo biyihi roobku yiraado jafaaf u dhaco oo qoostaan ilaahay uu og yahay mar dhow inuu u gargaari doono buu ku qoslaa rabbi subhanahu wa ta'ala wa yaa'isin qanitin azlid garan ma haya ilaahay isbedelka uu soo waday dhawr oo ma hayaan laakiin waa samr haya marka la isma dhigtee إلهي سبحانه وتعالى والله بر وأن مع العسر عليسك وحال أصد يسرا مركا أنت يعني وأنت لقوش سورة الحشر لقوش طيب إن مع العسر يسرا
فإن مع العسر يسرا لبا يسري بالله شيء هل عسري أو مركا الله وإليه اسمك هذه اللي سوء على سوق معرف بالله هل شيء بالنقطة أشو عشي حديد ذوي لكن يسري منكر كأه يتعدد بودادو هذا مركا لبا يسري مركا لا يغلب عسر بين يسرين بودادو هذا وأنا أثر أصونه مأثورة وي الحديث العشرون حديث كلاباتناد عن ابي مسعود عقبة بن عمرو الانصاري البدري قال رسول الله ابي مسعود كن يدي سوي عقبة بن عمرو البدري قاس خلاف باكتاغر البخاري غير كنا وحي رجحينه صحابي من اهل بدر ودغالكا قيمها بدن وكقيب غلي ودادنا waxay sheegaan ma ahe wuu dagana goobta ayuu dagayo saas loogu aaneyn haya قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك وحاكمدا وحي هلالين الناس ضدك أي سوق قاعدين ومن كلام النبوة الأولى نبي نبده الرئيسي هذا الكهريئة أنبياء هوري إلهي صوت دري حكم كأي كتجين إيه ديمه كتجين وحي لقد حلي ولك باقين إن دراسين إن أباجين وحاكمدا إذا لم تستحي هذا الحشونين فاصنع سمين ما شئت وحد طيال مربطا حشود اللهين وحي كلقوا من كل دقاقوي يعني حكمداني وأنبياء وحي لقد حلي ديمه لقد حلي إلا أنبياء مركي هذا دينتي ومدة جارسيان ونبي قال إلهي أفصده فترات بعد دعي وحي يجيب اللوبي دينتي بحاب صاري لكن ضدك كل وحكوها وحيابا بقايات قريش وحكوها سنة دين بدن باكوها سنين صلاة وحكي يقانين إن كسدوا هذا تحريفيا وبلايا كلا قديجين حج كوايا قانين صون كوايا قانين جور كان يسجور سنة وحبي كهين صدقات ك يا طواف ك يا عمرة يا النذر ك يا إيمانتا يا كرم كي جاهلي هاي قيمها بناء حق الجوار كها إن هاي قبلها أن الواحد قد بينها إن ضدك لقد فين خمرة قيان عبي جرين يعني أخلاق وحيلها هين عهدي إلا قصوا بحب الله كلا لبرنين أبو بكر الصديق يا النبي مال اسكر راعي يزيد بن حارثة بوحي اسكر راعين نمن عربيد السوحجي أنت النبي أولي وسن هجرونين والنبي قد دلمنها يا إن قبائل كعربيد قبيل كميضة أي والنبي كبيرو ونحته ودين تكدح فيه كواسو كالدفاع يا قريش عليس كيكو هيان قبيل مركنا بيقول تجي كي من حق الشام دق الجري وفربضنا عربيت نبي يقول أبو بكر بأن سابته يقاني أبو بكر بارياتهين وحيد ريه بالبانا قبيل سراي شكتين ريه ذيل باناي مثلا قبيل وين بيشكتين أبو بكر وحيد ما هبل مدن كجرا مايا هبل نقوم جرو إلى تطبق أضي أو أنت سو جريب أو قيس كذا شيء بوشة odaygaan ma idinka tirsan yahay maya jilibka annaga ma ah odaygaana maya wuxuu idinku kula angaab sakarada tiini nimankan doonaynay ee naqaadi karay ma tihiin orday iska tag nin baa hadlo wuxuu adigu yaa tahay annaga nagashay oo run baan kuu sheegnay inaan laan dheer lagu baay aanan ahayn annagu waa kuu sheegnay niman iska masaakiin oo xogo irmaan waraabsiga ku fiican baan nahay xabad aan lahayn ma garaaci karo qolyaha sheegto dhanba nin naga socdo ma jiraan waana qabaa'il kale jilba kale weey annagu qoys yar oo masaakiin aan nahay laakiin aan tabar badan lahayn laakiin abtirka ka dhash waxay dhahay adigu yaa tahay wuxuu anagu waxaan ahay quraysh ma jilibkaas aatay jilibka la yaqaan maya ma reer banu maqsuum baa tahay maya ma kana tahay maya qurayshtii la yaqaan dheerayd iyo laan dheero dhan bay soo tiriyeen yaa tahay reer bani tamim baan u jeedaa laangaab anagoo kala taale Abu Bakar laangaab buu ahaa markaas garba dhac baan nabigu waa qoslay sallallahu alayhi wasallam say ugu run sheegan Abu Bakar asagoo markay weydiiyay ugu run sheegay buu nabigu ku qoslay sallallahu alayhi wasallam markaas ay dheen hadaad nin reer bani haashim tahay ama reer bani makhzuum tahay baan wada hadli lahayn ama aad noo faani kartaa laakiin adoo reer bani tayma anagoo kala waxba geedaha na jiirsinna bidaadeen markaas uu waakar nabiga ila socday rasuulka ayaa reer bani haashima asagu markoo inuu hadlay ahayd buur yay dhaheed markuu wuxuu ana ansaabta aqaanu nabiga anuu ii diray aan wada xaajoon nabi markuu intaas Abu Bakar iyo dhaxmareen iyo nimanka carbeed iyo nabigu hadalka qaatay wuxuu waxaan doonaynaa in aad gargaar iyo garab noo noqotaan oo naxambaartaan oo quraysh nagala wareegtaan oo marka diinta aan faafino fa inna qurayshan qad mana'uni an uballigha kalam rabbi risalata rabbi waxay dhaheen duqaydii meesha fadhiyay waxay dhaheen waa hadal wanaagsan laakiin boqor carbeed iyo kuwa reer Room ah iyo farisiin iyo manaadirada Ciraaq joogtay intaasoo qabiil baa waxa noo dhaxay heshiis
waxaysan ogeyn inaanan go'aaminin nimay iyagu isku dhacsan yihiinna aanan keenin waddanka ee bal mabda aad wadato noo sharx aan qiimayno mabda aan qaadi karro boqoraha yeeli karaa inuu yahay iyo inay tahay dhimbil daban la qaadi karin aan ogaanay noo sharx yidhaahdeen nabigu waa la kala baxay tawxiidkiisii muxuu ahaa mabaadida islaamka buu sharxay way dhageysteen waxay dhaheen wax la bandhigo ummad loo sheego ka qiimo badan ma jire laakiin mabda ay boqoradu yeeli ma aha ninka isku taabtana boqoradu waa ka farxalanayaan laakiin waxaan kuu ballan qaadaynaa annaga iyo wixii carab dhankan soo jiray xagga makiya carabaha soo jira inaan kaa difaacno laakiin webigan dijliya furaad wixii dhankaa ka ah boqorro waaweyn baa joogo kaama difaaci karo intaan kaa difaaci karro haddaad ku ekaanayso oodan u gudbaynin seeraha kale waa ku qaadaynaa nabiga soo ugu run sheegeen iyo ballanka say u ilaaliyeen buu la yaab wuxuu ihi jaahiliyadu ma aanan moodaynin akhlaaq noocana inay leeyihiin yacni waxay diidan yihiin magana iyagu qaad in la dhaco lagu xadgudbo waxaysan qaban karin inay dusha u ritaan durba haddana waxay fahmeen diinta nebi maxamed culayskay leedahayoo inaynan dheeldheeli gu soo raysan ahayn waxay markiiba fahmeen boqorradu mabda'a inaysan yeelaynin ilaan ha la sinaado ilaahay keligii addoon ha loo noqdo alla ha laga cabsado cidna laguma xadgudbi karo howlahaas howlo la yeeli kara ma boqorku inuu amarku taglayuu rabaa nabi wuxuu yihi waa runtoodo waina diina allahi lan yansurah ilaa man axaatahu min jamiici jawaanibi diinka ilaahay uma gargaari karo nimaan diintoo dhan wada qaadanin inta dhinacyahoo dhan baan aan ka istaagin waxaan oga jeedaa akhlaaqdaa wanaagsan ee carab iyo mushrikiin iyo khayrkood ba lahaayeen waa baqaayaad iyo aathaar ka soo jeeday ambiyada hore dhaqankoodii wanaagsana xadiidkuna tiibuu tilmaamaya ina mima kii waxaa ka mida adraka ay haleeleen ama ay kala dhaxleen annaasu dadku min kalaami nubuwati اluulaa ambiyadii nubuwadii hore النبوة جنس النبوة اللوجدة والرسالة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت تهديد بين نقون كرتا كلمة إباحنا والغو شيغا وحاول يمرها ضد الحشود لهين وضن سريغانين وحاد دون تصميوي وتهديد هبه لو هذا وحيين وحاد دون تصميه ماشي دون تكبح ماشي كعلي ساعات وركان ميل مايا بس فرتها دون قرب الولايه يعني waxaan xun samee lagu ma jeedo mar hadaynu kala dhimanay waxaad unta samee way mar haduu xishaadu ka dhamaado wax ku cilil ma jirey waxaad unta ku dhaqan way wadana waxay leeyahay waxa way waa ibaaxo bimaana ida lam tastahi shaygan wax laga xishoodo haduusan ahayn waa ku fasaxan yahay samee way shaygan wax laga xishoodo haduusan ahayn maxaa laga xishoodaa xaaraanta laga xishoodaa waxaan banaaneen baa laga xishoodaa dembiga laga xishooda karaahada laga xishooda shaygu wax laga xishoodo laga sariigta haduusan ahayn fasnac maa shi'ta idan waxaadun samee waajibkii samee oo shayga mustaxabka la imow mubaaxi la imow halkaasuu dadaa ku fasiray laakiin tafsiirka hore ayaa loo badan yahay nusuus badanna ay taageeraysaa walxayaau laa yaati ilaa bikhayr xishoodkuna labaa loo qaybiyaayo midna waajibili oo waa qariiso ilaahay baa dadka ku abuuro ku duuba وانا خصله في عنو آدي أدو قيمة بدن ضد يربان الله سيه سبحانه وتعالى من نوع من لك صبدو علم هذا عبادة قونت أمة الله دقنت بأد أكوسو كرتي باكينيس وخلق مكتسبة روح أسوق لها غريزة أهان يا طبيعي أهان بحشود إلهي كو أبوري هضو من الآن لقى حشون أوتغو أو لقى قاوين هاي أو لقى قيلي أو لقى حشونين أو لصدح يعهاي واجد مردقن كاسو صامين يروح وتأثيرني midna marka waa la kasbadaa oo wax ruuxu uu marka tajribo iyo bay'aadka iyo mujtamacaadka iyo aqoontiisa iyo markuu isku day iska keeni karo oo aadam masad isku gudayso dhaqanku noqonay waa kula yeelaysa waa ku cabismaysa waa la qabsan shayna waa shay la qabsado oo markaas la barto midna midu ilaahay kugu abuuro subhanahu wa ta'ala wa labadaas xishadka loo qaybiya labadoodana midka hore khayr badan midka abuurka ah ayaa qiimo badan oo hadee kaasi waa dabeecada qayb kamid ah markiiba ku sahlaya laakiin midkan takallufka ah wax laga marar badan inaadan hawshi ku guuleysan weydo wadana waxay dhaheen midkan aan dabeeca ku ahayn ee isku dhibayso ee iska keenayso ayaaba ka khayr badan maadaama intaasoo mashaqad u marayso dib u marayso idan xishoodku waxa weeyaan marka la soo ururiyo waa al-istiqaamatu ala al-waajibaati wal mustahabbaat iyo in laga fogaado laga xishoodo waxyaabaha xun way wax ka soo sharciga ku fiican laga xishoodo oo laga fogaado wixii khayr sharciga ku fiican la sameeyaa xishooda laakiin diinta in laga gaasiro oo dacfi iyo ajiz iyo khawar iyo mahana aad u qaato xishood ka dacfi baa leeyahay
وتاق درو ورنينك خير كل شيء واكحشون هي كحشون ما وفلينيمو ورشيء رنتا تابسين ما وحشون هي كحشود لمين هذا وحال يدل النما اللي هذا هي فلينيمو marka wuxuu xaska dacfigi iyo ruuxu xaska qasmahay iyo dulliga iyo mahaanada iyo muxuu ahay xishoodku waa khuluq kugu xambaaraya wanaaga sameyntiisa ka hor istaagaya xumaha ka fogaashi ku dhiciisa طيب الحديث 21 حديث كلابات اليكوبات عن ابي عمرو وقيل ابي عمرة سفيان بن عبد الله يعني كنيده صحابي ابي عمرو ومذكر اما ابي عمرة وتانيث عمرو وحكى معها سفيان بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله رسولك الله وحان كوري رسولك الله يقول لي وحاد إيشك هذا في الإسلام أي في دين الإسلام قولا كلمة يقشك يدردارا لا أسأل أنا ويديني عنه قولك حقيسة أحدا آدمك لغيرك هذه أنك أهي هذا النبي محمد كوبا رواية حديث النبي الله هذا الكوبا وذل يقول بدين إيشك سأل أفهمه إيسو قابل هذا الكائن أروري قول موجز أون إغفك أن حقا أن كو يطؤه أون كو رغم إيشك أحد كان أنا ويديني النبي وأخلاصي قل لي في الإسلام قل لي يعني إيشك في الإسلام في دين الإسلام وأحكامه وفروعه قول قابا ورسا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال نبي حولي قل وحاتر هذا آمنت بالله سمد دوريس إن يروك أن وآخري أدون بأكوبة باده معنا بدنا وصوق لو حتى آمنت بالله ألا الرمييده وتوحيدك إلهي جانسا أو إسلام وعقيدها لقاها ولا إيمان يا إسلام صارنا طيب حق أن كل واقع عرب كذا كسر بحضه ثم استقم على الإيمان والتوحيد كنت أصنع بالي الإيمان والاستقامة استقامة وفي الأعمال الظاهر أعمال الجوارح هو إلى إيمان كذا إنه توسني هاي iyo tawxiidkaadu inuu khaldan yahay waxa lagu ogaadaa kulba qaabkaad u dhaqmayso qaabkaad u aqdaaman ama u adeegan ama u tasarrufi markuu khaldan yahay waxa la ogaan waxa meeshan kugu jira khariban iimaan fiican baa kugu jirin motorka ku saaran injiinka kugu rakiban baa khariban sidaa darteed buu booriga ku saaran la kala daadanaya haddii laakiin iimaan fiican kugu rakiban yahay oo motor fiican ku saaran xubnahaadu asaga ka amar qaadanaya ilaa waa boqorkii laga amar qaadan lahaay قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم إذن فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم سورة الشورى نبي محمد وحاله يسيد اللغو أمري يال كون التوسنو ضدك وحيابها يدونها هي أنها كل دقاق فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا آياتها النبي وحوله شيبتني هود وأخواتها حديث سيدة صحيحة سيدة راجحة حسن كأه نبي وحول هود يا ولا له هاد باي عريسي عمر ددجيي يعني فاستقم كما امرت قضب ادقوي نبي الله سيد لو امر او توسنو بدح iyo midiga u leexanin ومن تاب معك انت كل توبد كنتي ku rumaysay ku raacana hasahay ila iyaguna dariiqa ku hagaaga يعني waan toosan wadii ka taa laakiin ma oran kartid sidoo ilaahay amray baan u toosnaa hawl adag ilaahay sidoo doonayay ee uu amray baan samayn hayaa kaarad xoqon karta ma kaarka asaga nabigu marka wuxuu sallallahu alayhi wasallam suurada waa adag tahay al-istiqaama macna waa maxay waa in waajibaadka lagu hagaago shay kasto waajib oo diini oo ku saaran oo ka soo baxdo shay kasto xumo laga reebana banaanka aad ka marto hadihi al-istiqaama marka danina boqolkiiba 90 buu dhaweyn hayaa toosnaanti ninna waa gabi dhacahaya waa la kala tagi nin baa suu gabi dhacay u socdo waaga dambe boqolkiiba hal baan xajinayna gaalimo ku dhacdo waa tagay ninkaas idan akmal istiqaama ya kamal istiqaama anbiya rusul ba iskale kadibna siddiqiin iyo shuhado iyo saalihiin ba soo gali dadku waa kala tagayaan tafaawud ka saajiraya al-iimaan billah thumma al-istiqaamatu ala a'maali as-saalihaat wal-ijtinaab 'an al-manaahi wal-mazaajir baa loo jeedaa rawahu muslim wa diinto dhan ba intan ku edel diinto dhan baa intaa ku idil wax ka baxsan ma jiro iimaan hadii laga helay waa wixii acmaashu ay ku asaxaysay ama lagu ajirsiin lahaa ee asaaska ahaa waa guriga asaaskiisa furuucdu guriga ka baxaysayna waa al-istiqaamatu ala al-khayraati wa tark al-manhiyaat
الحديث الثاني والعشرون عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري أن رجلا سأل رسول الله فقال أبي عبد الله وكن يديس جابر بن عبد الله الأنصاري ويل يرى وقيام بذنبه النبي أدو جعل هاي أسقي أبيه وصحابه أن رجلا سأل رسول الله رجل بالنبي ويدي فقال وحوري أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم. نبي محمد سؤال بالويدي مهم جدا. فقال وحوري الصحابي أمنك مسلم كان نبي سؤال شويدي رأيته اللي قدر همزة الاستفهام ويحكى لما أرأيت نبي الله بالكور أما إيشك أما إيجورا إذا صليت هدانت كذا المكتوبات صلاة الله فرض يلي جمع مكتوبة شنطة وقتي واجب كأدام ميل صاروا وصمت رمضان بشهر رمضان أن صومه وأحللت الحلال شيء حلاش أنا آمن إنه حلال ياي اللي دين الإسلام كي شرعي شيء هو حلال بأورنيس أن رميه كون رقمه أحللت الحلال معنى كجل الاعتقاد بكونه حلالا وكو واستعمال الحلال والله شيء أنا رميسو إنه حلال ياي إن حلاشها استعماشه وضع حرامتك فقاته وحرمت الحرام شيء حرامته أنه هو حرام بكتاب الله حقنا أن كفقاده شيء هو حرام برنامج كمر ولم أزد أنا قدر على ذلك أنت أيضا صلاة أن تكذو يصوم أن صومه شيء حلاش أن كهجاجون رميين حلال ياي حرامتهم كفقاده أن رميين حرام تاي أنا وحنا قدرين أدخل الجنة جنة مهلها يا ابن مقالها نبي الله جنة إذا مضيار به قال اسم الله نعم ها. طيب رواه مسلم بحديث كان وريي حديث صحيح ويي أمرا لهي لكن وحال سويدي النبي محو أقربي حج لما شيء والزكاة لما شيء أركان الإسلام كقيب مقن سائل كان حقوق أبصر شنطة صلاة إيا رمضان كا يوحي حلال استعمال آمنوا إني حلال تهي وحي حلال آمنوا إني حرام حقنا أن كدير هذا انت هدانا شيء دم بقدرين جنة يسمى الأول ما وبنانك ما تالو هابو النبي صلى الله عليه وسلم علوم حيليه نبي وقواعد وصحابه تلمامي بو تأسيلها يا مويني معها انت بس جنة الوجلي معه لأنه الجنة أسباب بالوجلاه وحيابك كوديدنا ويلده للجنة أسباب ولها موانع أسباب تجنة الوجلاه كو حكاء التوحيد والإيمان الصحيح أعمال صالحة إن الله تماد وأسباب طلوع قلوي إلى آخر ذلك قائمة دير ليستار دير دبقل وحيابها الجنة الجوا يكو حكاء الشرك ومانع كفر ومانع كبائرته زندي بنتي ديل كمسلمين تحقدر اللودلو خيانتي غشقي وحكى الصور يرحمي إسلامي الدين أيضا وقولنا كبائرنا وموانع عن دخول الجنة روحي مركز أسباب تجنة لقوق الجريه هلي موانعنا كبت بادي با جنة هلهي صحابي ونوسوء الريو وحولوا أحللت الحلال حلاش هدان آمئي حقنا أنصمي حلاش وحكمنا إلا زكال الليمات إلا حجية حلاش كوكا. طيب حرام تقولوا وان رمينا حرام وانا كفه شركة كوكا شركي وحرام وحقوه الرئي قدرا كفري كبائرتي ذنوبتي مركز صحابي أصدقى وحسكو الضري أسباب لدخول الجنة وموانع عن دخول الجنة انت هدان موانعنا كبت بادو أسبابتنا لا يهلو جنة المديار بهاب صلى الله عليه وسلم تاسو حاكو تسهي إن زكاة الآن هي جهاد الآن جنة لقلي حديثك بشير من الخصاصية حو النبي قال صلى الله عليه وسلم حو النبي قال له أبايعك على الإسلام نبي قعنته بالتالي نبي حول أبايعك على أن تعبد الله وحده لا شريك له وعلى أن تقيم الصلاة وأن تؤدي الزكاة وأن تجاهد في سبيل الله أحكامته لم بالو حجك لو قدري شن بالو تري أمل لح قضب بالو شيء قعنتي بقولنا نبي الله وحوري أنت كل وان يلي توحيدك عبادة وان يلي صلاة وان يلي صومك يقول حجك وان يلي أما وحوري حجك زكاة جهادك لبدا ما أود كربو جهادك وحوري الزكاة ما أود كربو ومحاجرة زكاة أنا حين تيرت أنت نهلها
annaga nagu yartay waxaan ka bixin karaa ma jiro jihaadkana wuxuu waxaa la sheegay ninka intuu dagaal tago carara atawalli yawm zahf in lagu halaagsamo midda kale waran iyo seef wacla uma istaagi karo xoogana carara ka baqayaabo nabi allahu jihaad iyo aniga sadaqa iga daayo inta kale igu ogow buuri nabi wuxuu yiri fala jihada wala sadaqata bima tadkhul aljanna nabi gacantii buu cushay beeca kula gali maayabo daan jihaadna jirin zakana adam sadaqana janna ma xad ku gali oros ka tagbo salaad iyo soon iyo xaj bis janna ku gali maysid xadiiku wuxuu tusay marka jihaad waajibay ninki laga waayay iyo muxuu ah zaka laga waayay la yadkhulu janna wa in kana muwahhidan wahabiyan bawda gaaban sarwal gaab hadoon anqodo doonahay yani xadiiku xadiis saxiix ah weey xasara bimaana waxaan uga jeednaa xadiidka inta kaliya lagu sheegay ma aha kaafi laakiin waa usuushi laga duwi lahaa waxa janna ku diidana ka fogow waxa janna ku hela ku soo dhawow macnuhu xadiidku intaas looga jeedaa الحديث الثالث والعشرون عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها حديث أبي مالك الأشعري الحارث بن عاصم مقع سلي هذا أبي موسى إسكو قيس أين هذا وقيم بدن ودنتي طاعون كعمواس سنة كيستي تمنات أيو شيء أيو صحابي قاعد دنتي قال وحول الصحابي قال رسول الله الطهور إن لكربا وناكسن أما مصدر أوجد أما بيها أوجد الله بضو إن لكربا صحة وراجحة قال يا وحيد هلك يدو منا طهور هل منا الطهور هل يدو marka at-tahuru waysadu iyo tahara qaadadku qabiiski baa soo gali meel janaaba meel hadath al-akbar meel al-asghar taharadu waa shatru al-iimani iimaanka barkii way at-tahur in la nadiifiyo nijaasaadka aw saaqda nadaafadu waa iimaanka barkii walhamdulillahi tamla'u al-mizan ruux nadiif ka min ash-shirki wal-hiqdi wan-nifaqi war-riya'i نظيف بدن كيسية جن كيسو كوري أيا جنة هلو يا إيمان لقى هلا إيمان كي بعد صدق راسه طهارة باطنية يا طهارة ظاهرة إذا إيمان كلا وكلا قاي مركب ويسقاتكو يس نظيف فنتو روح نظيفة نقطه نجاسات كي يا خبائث أسكفو قيسو وطهارة ظاهرة بنان كتال إن كفرك يا شركك يا حقدك يا الرياء يا سمعة يا هلاقاشك قلبك هذا لقى وايانا أصلا طهارة باطنية لبدا طهارو منا أي قرصون تاي منا أي برنان كتالو تنكوري أي برنان كتالو وإيمانك بركي بركة كلام وقيب تقرصون لبدا أنك لقى هلي وكامل الإيمان جنيزا وديار الطهور شطر الإيمان أي نصف الإيمان شطر واك برد مركب برد ليه شد ما إنس ليجيين هذا شيء كلا جبسونه أود بقول كيبا سيديتن قاطو أنا أم بقول كيبا لباتن قاطو وان كلا جبسنا أنت أجنّه وان نسي سنّي شرط ما إني لو ذا نسلسليه هي إن نسليه كيسنا شرط ما طيب مركز أساسا لو جدا مركز إني طهارة بنان كتالا أي لا إكتهاي ولا متهاي من جميع الجوانب مدي باطني ذاهيد شرط ما والحمد لله الله اللهم هذه أمان الله إسكال لا يداذو إيا مهضبة تملأ وحيب بوحين يسأل ميزان كي بوحين هدي أجر كذا ثواب كذا الله قاضو وميزان كقيام الله صار ويبوحين يسابع لي ذكر قال لي ماذا تحميد كأغفض بدن سلف باكو تغي سلفنا توحيد كأغفض من لا إله إلا الله والقور دي أغقي بدن باكو تغين نمنا التصبيح ذا يكو تغين نمنا وحيد مية تحميد يا تصبيح سراعة أغقي بدن وهو صواب وسبحان الله ألا نزهان وعيب كهفا وعيب كصلينا نقائص الله يعيب الله كهفا لا يجاهدوا يا والحمد لله الله اسكو درينا تملأان وحيب بوحيان لبضا كلمة أو تملأ أم أي بوحسا سبحان الله كليت أي بوحسا وشكر راوي شكر راوي أو تملأ راوي حورنها يبقى كشكيي ما بين السماء والأرض عريض أنت ودحيسا ميزانكو وكوين يا عريض ساكوين بقى وحي مركز ميزان بوحي عريض البوا بوحين هيا طيب كفاده ميزانكو واكوين تهاي وح عرك دوك واكوين
marka wixii asaga buuxiyay ciru dhul waa buuxinaya ajirkooda laga hadlayo ama alxamdulilah thawaabka ilaahay hadii jurmi intii loo yeelo iyo qira loo yeelo la saara meel miisaanka waa buuxin lahayd ama thawaabkeeda buuxinay والصلاة نور صلاة ونور آخر يكون نور جدك يمجدك كون نور وجهك ضعيف حبنه يكوي سيبا نورها هي قلبك يبقى نور نيسا إيمانك يحوج نيسا غشك كاساري تنهى عن الفحشاء والمنكر صلاته بل نبي محمد وهبل نين لي هي عاودن صلاة الليل بوتاقنا ذا فإذا أصبح سرق واقو مركو بريحتوي بالله بيديه نبي حوري ستنهاه ما تقول سينهاه ما تقول صلاة الليل كآت شيكتي يا عبادة منك كل شيكتي با كهر استاغدون وحا حمانتا إسلامك كو عسوبي هاي مركو إيمانك قلبك سفريست أو صلاة كد حلو وحن وادي دونا وحن كدب منك وحواجوجي وحن نبي شيء صلى الله عليه وسلم صلاة مركو النور وي والصدقة صدقة برهان قروي وحجو يا قر الآخر لا تقيس برهانك أصل كيسو وحالي هذا شعاعة كصهر يقرحها أيا برهانك أصل كسلي هذا مركا قرحها شعاعة كصهر بحي يسدو أحوك بأونا إفهايو يعني إنك الزكاة يا صدقات كي ميل صار قرتي سوى عضها هو برنانك يتالله حالي الصدقات وعرض الله بقتيساه والله يرالي قريساه oo waxay ka ilaysaa si xun u dhimata silaac mariyad iyo saxaritay ka ilaysaa marka sadaqadu waa khayr badan tahay zakadii baa meesha ku jirta wasabru sabrkuna diyaa'un wa iftiin way salaadu nuur baa la yidhi sabrkuna diyaa baa la yidhi diyaaga iyo nuurkuna diyaaga xoog badan oo baasan jacala shamsa diyaa'an wal qamara nuura إذن ضيح حاله ونور قرح حاله وضياء نور كقرح حسكو درس لبا أرمود إنه حوق بدنيا هاي حق إنه هي محرق وحقوبها هي وحوق بدنيا وانا كقوبها هي إفكي سنو وحوا كحوبة متك قمرك لكن قمرك واقفها هي لكن كدنقم هاي كقوبي ما هي سيدا قرح ومحوق بنو صبرك واسدا صبرك ضمان عبادك وكحوق بدنيا ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر نوح الروح بن آدم خير لمصي يكوين أما كقيمة بدن صبر صلاة صبر بأنت صونك صبر بأباية جميع العبادات والواجبات صبر بربطها جميع المعاصي والمنكرات إنها تكسبرتي ربطها مصائبتك ودعي إنها أصبرتي كهربان مركز صبرك وكحو بين جميع الأشياء إيمانك إنها تصبرتي كهربان reerkii niba khuraafiyiin iyo mushrikiin isku dhex yaalaan marka kaliya hadda anu tawxiid baan qaadan oo laga farxalan diinku suux kii wala kaligii muslim ha haddu soo rucleeyay toobad ku suux weey waa diin barad taayid fudida ka farxalan oo korida ka farxalan oo gaala inta la gaarin ba ku wada qaradayn baan ku daynayn inaad mabdii ku dhigto sawir buu ka raba هزائم بائما حنونا كوكو إيمان فرتد قادة والصبر ببانته واستعينوا بالصبر والصلاة ساسا يا لوهر مريي والصبر ضياء مركا واسداس صبركم مركا من رب بدن بوغلا هي والقرآن قرآن كون حجة لك قرب يكون نقنية وحجة لك أدو قركوية هذا كل قنتي أو راعدي فاحكم بينهم بما أنزل الله وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا هل كان مربى النبي الله ثم جعلناك على شريعة منها فاتبعها فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم يعني لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون يعني قرآن كان إنه الدنيا ضنتنا إيا تاريخ دينا إيا ضدنما دينا إيا الدين تينا إيا ضلكنا كجرا مالك بدح يميدك لقم مرئي القرآن كان لقى جيته ومالك كان بابا أين تاريخنا ودميسو عرب ضد مساكين وقناطاء وصحراها برق إيش برق دحكون والبيئة هايين reer furus baa gumaysan jiray oo reer hum baa gumaysan jiray oo jabbaar kasta ku ciyaari jiray in yaroo qureeshadu yiraahdo anagu waxaan beedka ilaahay ku kaban jiray baa xoogo la badbaadin jiray inta kale
mid ay gaajo meel cidla ku dishay iyo miduu gaal kala adoonsado bay ahaayeen masaakiin ah markay kitaabka ilaahay qaateen khilaala 25 caaman bay adduunka ku qabsadeen ilaa cuqbat munaafic uu istaagay badan hadda u dhaxaysa yurub iyo u dhaxaysa muxuu afrikada waqooyi Morocco jabal taariq meesha u taqaanaa intuu istaagay buu hadaan ogaan lahaa wax inuu xagga ka yahay waan talaabi la khilaafada Uthman ibn Affan intuu gaal halka jooga qabtay oo baabi'iyay ayuu wax gaalay miyaa meelahan jooga maya afrika ma israacday ha faraskiisiiba intuu la dhex istaagay qarka badda ayuu hadaan ogaan la aadama aan ilaahay rumaynin oo muslim inuu xagga ka jiro badan mari lahaabo way soo afjareen intay aanaba ku ogaayeen ee xagga uun ahayd waa soo afjareen ilaa ay qaadan waayeen boqorada reer Ciraaq kuwa reer Rom kuwa reer Faris atrakti daylamiinta waa qaadan waayeen wanimankii masaakiinta ee ay gaajada ku baabiisay xubeertu iyo macluushu ku baabiisay bariga dhexe aan adoonsan jiray gabdhaha sadana uu keenay jiray soo ma aha nimankan ee mararka qaar kuma ku xanaaqno intaan qaban aan libaaxiyaha u dhigi jireen siin jiray ها وأيق بال محاس بدلي ويديا لو حس بدل وهاي هاي مطور كلا صارن هداي مشركين بهذا وحيين موحدين وي يعني دين تن مركا أضو آت كل قنت أضاي كودنتها أضا وح كنا قن سؤال وحيتها تلو أضا أبانه هي أيضكم أبانه شيء قتلا لا يجاب أضا أبانه أيضكم أبانه دين تن أضا أبان ما يضحكون قن بس إن الله غني عن العالمين لغني حميد كل هذا سرعان فلا يضر الله شيئا إذا وين قاعد حديث أبي ذر لما قاعد دوناي هوش وحاوي والقرآن حجة لك إن اتبعته وعملت به أو عليك أم كرك أضوك دعوين هي قربك ونقون ومسلك مهلا دايو وأكون شفع قضي القرآن شافع مشفع وماحل مصدق نبي حرس القرآن وإرجي كو إرجين هي إرجي سلا أقبها يا وليبا هدو قرآن كو يا إلهي يا أدون كان بنان كان لقمر محاجرة ويقول تكن جري ويأخري جري ويقول رقم جري بدحي مدك أوامرت أن لا يمد يمناهد أن لا يمد مد كساسيس ويقول رقم هاي أدون كان بنان كان لقمر إرجدا وسوق قدم ولا جيل هيا ولا أقبل هيا وما حين تاتو سوي مصدق للرمي دراوي ما حلك وروحك ودرك وكشارة هبل زما قبو دل ميل كفر حاله توقوي قرآنكم مرة هوستو كاتش هذا هيا مركو كقدر هاي إلهي يو معادتك كعذاب لو ولا الرومين هيا هادو وح كقدرنا ولا الرومين هادو كوير جيل ولا جيلي وما حلون تاتو سوي معو هاي هوستو كاتش هذا هيا إلهي سبحانه وتعالى مصدق لغير الرومين هيا هل يسوي مركو قرآنكم على السكيل عليه أو عليك أما أضوك الدعوين هو ما حلو مصدق أما والله وشافع مشفع كل الناس وحكى لك مرة بوين لقول رقم على قرآنكو انتي إلا آخرية هلا دونكضو ميلا هلا صاروا لكن شرعك يا دستورك يا نظامك يا رقمك وحنك قاينا وحد جني بارلمانك حير بيكتدا دغي داراتكي يا كوي هوي كوي محو هاي دريد ف وحنا ما يقعد جنهي قرآنك وحلوس ديجي النبي محمد لتحكم إن أنزلنا مع دبي اللهد إليك الكتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله وحالوك يعني إن قرآنك اللي حكمه فاحكم بينهم بما أنزل الله يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى أنبياء وحاليه هي إذا ضبصني بآدمه نوح يقول واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليه يعني قرآنك وسوع له شيء محيي لي بدح يمدي إن لقى مرماها أمر كذا أمره وحدي ذا ريبا أنت أمرك قرآن كان كأمر قضانا يدين كأنه ضد بين النقرين لكن ما كان كسو إرجس النو أما كسو حق إنه ريرو بيره قلب شرعي يد ساتير يا قوانين ضد من أي آن مودنه وما لك إن ورد ما تي إن لقط الله بحينه مقدر رسول حلينه انت يا ريد انت نوي مادين اما مر نظام محاكم نو سميه اما هذا يدور قبل لوغا شقييا بان خوغو neefsanayba oo waxa ina soo galeen oo diintii macaankeeda dareenay intii baan loo diidaya qabta baa lagu hayaa marka nin walba meeshu hayo waa uu iska cadaani
adugu quraankan iyo diinta ilaahay ka hagaag kullu naas dadka dhamaantood yaqdu waagu markuu bariyo kala haaya yaqdu waa kala haaya fa baa'i'u nafsahu fa mu'tiquha aw mubiquha bimaana nabi wuxuu jeedaa kullu naas yaqdu ay yas'a dadkoo dhan waa kala waagu markuu bariyo ama gabal ku dhaco nin walba waa dhaqaaqaya amal bad ku dhaqaaqi ninba in xun ku dhaqaaqi naftiisa buu halaagay ninna insan oo wanaagsan ilaahay raali ka yahay buu ku dhaqaaqi oo naftiisa buu badbaadiyay yaqdu waa kala hayaa fa baa'i'un faminhum xakamida baa'i'u mid iibsaday nafsuhu naftiisa ilaahay ka iibsaday oo fa mu'tiqa xureeyay bimaana sida rabbi ugu iibsan ilaahay waajibaadku ku dareebaad sameyn khayraadkii baad ku hagaagi naftaadi baad naar ku xoreysay waad is iibisay in is xureeyay oo lacagta shubayn oo naftiisa ka qadiyay baa tahay saada salafku waxay dhihi jireen ruuxa bini aadamku waa asiir lil aakhirah aakhirad adoonta u xiran tahay xoreynta aakhira la xorooban adduunka la isku xoreeya ninkan adduunka aan lacagti kaash garaynin aakhira uu ku xoroobi lahaa jahannam uu tagayaa ila adoon buu ahay marka adduunka la isku xoreeya kharashka iyo lacagta la isku xoreeyo adduunka laga hela kullu naas yaqdu wa kallaha ya fabaa'i'un faminhu aqamina baa'i'u nafsa nafti samid iibsanayo ilaahay ka iibsanayo acmaashi iyo khayraadka la imanayo oo rabbi adeecaya famu'tiquha marka nafti xoreynayo naar ka xoreynay aw mubiquha faminhu aqamina mubiqa mid halaaga oo nafti balaaya ku rida xaraan iyo been iyo baqti iyo shirki iyo gaalnimo iyo diin daru la xboodaya nafti waa halaagsantay naar bay tagaysaa ciyaadan billah bacdu salaf waxay gaari jireen nin salaf istaabici ismiisaamay miisah la isarabo wuxuu noqday taqriiban 80 kiilo 80 kiilo oo dirham oo fidu bixiyay sadaqa an nafsihi waaj sidee baa leeyahay naar baan isku xoreynaya buu culayskaygan xoreynaya naar ka xoreyso jannana aad u xoreyso in allaha ishtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna rawahu muslim الحديث من قدر هذا الرابع مسؤولين كان وديريه مثل كان وديريه هلكا ينوجها ان شاء الله تعالى بالله توفيق